राजा कुरान से प्यार हो गया पहली नजर पहला प्यार हो गया दिल पीछे तुझे प्यार होए واتهاي كلن وعن داود يال إلى هان ملك استاجبتان هل كني وتثبت يوب حيل جوا صاحبك عبد الله عدي عبد الله سودو ودوها مسؤول باشي واتهاي ما تو حميس كإنه صارن التريشعان وإسلام مركاسي كبد بعدي عذرك كنسرك هذا واحد كم تا التريشة سيفتين كبلوتك فأنا كان رأيان سمين دون عقاب كي كبد بعدي في الماضي هذا إيوه حلقة وكنسركاسي كودعي waxyar walbixintan aasla daawano atirashadii kansarka ka badbaaday waligaygu waan ka mahadnaqayaa fursadda labaad ee aan u helay nolosha atirashada caanka ee shirkadda Bollywoodka Hindiya Manisha Karol ayaa maanta barteeda Twitterka soo dhigtay sawir muujinaya markii ay la xanuunsaneyd cudurka kansarka gaar ahaan noociisa ku dhaca ilma galeenka dumarka waxayna ku lifaaqday qoraal ay ku sheegaysay in waligeed ay ka mahadnaqayso fursadda ay mar kale u heshay inay noolaato sheekadan ayaa waxaa hadal hayay inta badan warbaahinta Hindiya sida wargeyska Hindustan Times iyo telefishinka NDTV iyo xitaa sidoo kale baraha bulshada Manisha oo ah atirisho si weyn loo yaqaano inta badan filimaanta ay ka soo muuqatana la jeclaysto ayaa dagaalka ay kansarka kula jirtay ku guuleysatay sanadii 2014 waligay waan ka mahadnaqi doonaa fursadda labaad ee aan u helay nolosha tani waa fursad aad muhiim u ah oo aan u helay nolol farxad leh oo caafimaad wadata ayay tiri Manisha sawirka ayaa isugu jira laba qaybood oo mid uu yahay xilliga ay isbitaalka ku jirtay iyo mid kale oo hadda ah mar ay ku raaxaysanayso dabeesha dhul buuraley ah oo ay booqatay kumanaan ka mid ah taageerayaasheeda ayaa jeclaystay isla markaana sii faafiyay qormada iyo sawirka ay soo dhigtay Twitterkeeda waraysi ay sanadkii hore Manisha siisay wargeyska Hindustan Times ayay ugu sheekaysay sida ay nolosheeda khatarta ugu jirtay markii uu ku dhacay cudurka kansarka ma garan kartid in waqtigaasi dheer ay daaweynta ku socoto ay noloshaadu badbaadi karto ugu yaraan 6 bilood ayaan daawo qaadanayay mana hubin inaan gabi ahaan bareysan doono ayay tiri Manisha waxayna intaasi ku dartay in dareenka noocaas ah uu qof walba bedeli karo waxay atirashadan si joogto ah ugu mahadcelisaa waxay warbaahinta India ku qaxeen sida ay ugu soo laabatay qabriga agtiisa Manisha waxay markii ugu horeysay Bollywoodka ku soo jishay filimkeedii la magac baxay Subnash Ghai kaas oo soo baxay sanadii 1991 markii ugu dambeysay waxay ka soo muuqatay filim siyaasadeed oo lagu magacaabo Barsanam 2019 kaas oo sidoo kale ku jireen jilayaasha kale ah Sanjay Dutt, JK Sharif واتهاي عبد الله طبعا وربحنتان وداوتي كورن بالاتريشدان horta Manisha Karol adiga ahaan maxaa kugu soo dhaco markaad maqashid wallahi waxyaalo badan ilmaan badan ay shacabtira ay sameeysan arkay oo shaqadooda qosol miirana heesa kala duwan ay qaaday adiga lama soo koobi karo Hindu wax yar bal astul taagno wadanka u dhalatay waa horta waa dadka waxay dhahan waa Hindiya ku tiriyaan laakiin ayadu Hindi ma ahan waayo mina dadka waa wadankan waxay u dhalatay leeyahay gobolka leeyahay Nepal waa gartay ay u dhalatay 1970 marka waa gabar reer Nepal ah waa gabar reer Nepal ah waa gartay filmadeeda filimkii aad ku xiiso galiyo marka daawatid film brother saddex film oo aan ka daawado oo qiiro leh ayaa jiro filimkii ugu horeysay ee sameysay ma sheegay laakiin filmaanta dambe oo dib loogu bartay ma sheegaya kii ugu horeeyay ma ahane kuwii dambeeto oo midka Raja Kurane hees macaan aan ku jirto Raja Kurane se pyar ho gaya ya pehli nazar pehla pyar ho gaya ya salaam ishq ya kusoco way nagaday waata iyo filimka Raja Kurane dalkaas ugu gudubna iyo Maharaja ya iyo filimka kale taa Maharaja filimka Kofinda saddex minaas oo dhahay saddex farad oo xayawaan Sultan Turet Soomaalida Sultan Turet iyo Meeraman waxay horta filimkan Sultan Turet aan stul taagno daanyera ku jiray shakti filimka shactir ma tirada fanni waa sidaba Manisha Karol filimkan iyadu actorkan Kofinda waxay rabtaa inay soo saarto isla markaana waxay u shaqeysaa wargeys miyaams TV waxaas camal u shaqeynaysay waxay rabtaa warbixina inay ka diyaariso laakiin marka dambe way jeclaanaysaa oo
intay ka tagta magaalo ayay tagaysaa meel tuula aad u weyn oo dadka oo qaab ahaanad ugu wada nool bulshada marka qiimeynaysaa ninkaana marka la qumanaanayo waa gartay gaayga markaas dhees warbixin ka diyaari maxay diyaarisaa jecel meesha ka imaada filimkaas waxyaabo burhantiisa caanka uu ku yahay Kofinda maxaa kamid ah marwadi la maamulayo xayawaanaadka macnaha adiga amarka uu siinayo waa gartay oo aniga aan aad kule macnaha xayawaan saan lagu maamulayo waa kulli mucjisad shaqo dureed aniga inta uu qiirada badan waxa marka dadka sunta la siinayo dhamaanayaan uu asaga imaanaya dad daawata oo durdurka waxa imaada leeyahay boqorkeena waa qab waxbay daldalayaan aad kulli hidiga aniga martaba faragashan karna laakiin waa bad waa inaba caadi ma okay sodan dureed aan ka gudubno heesa macaana filimkaas ku jiro Manish Roll ay ku jirto ayada laftirkeeda xitaa तू मेरी दीवानी बस यही है महाराजा की कहानी ये बातों में मोहब्बत या तेरे करनी न जानी या wuxuu leeyahay meesha kale ku jid waxay hees kale oo isla heesta oo dhahay markii isla qaybta oo isla filimka dhexdiisa oo xalqada kale ta meesod wuxuu leeyahay meesod hadii waa kala maqan tahay waxa leeyahay dhaqana sole bohala samson hadii waa heesta filimka horta way ka baxsatay Manish Roll kal ilaaba ku dhahay aakhirkii markii ay jeclaato warbixinadii ay rabtay inay soo gudbiso xitaa way tuuraysaa asagoon bay jeclaanaysaa aad u weyn asagna filimkaas daacad ayuu ku jirayaa kalilaab wata meeraman ayaan u imaanaynaa meeraman maxaa ka leedahay filimkii mucjisada ahaa iyo filimka jira asagana sajajud iyo ku jiro oo heesta kale ta ayada la yiraahdo filimka magiciisa kashke wata filimkaas waa u imaanaynaa bal meeraman in yar aan isdul taagno meeraman horta saddex sidoo kala darana ku jirto mid maamada loo qaadayo iyo mid loo qaadayo meeraman ah iyo mid kaleeto oo isku qaadayo markay curyaanka ay tahay sax heesta ugu horeysa soo qaadana oo maxaa la yiraahdaa meeraman कोई तुम चाहे ये मेरा मन ना जाने कर कैसे ये तन बल عادي maahan heestaas runtii dareen wadataa muwaala iyo hees kaleeto oo ku jirto filimka dhexbartankiisa ah oo ayadana calaacala oo leedahay berdes meel ilaasaan jecelahay oo ka hadlayso iyo hees kaleeto oo maxaa la ayadana oo dabka loofka uu ku dhigayo aad heestaas aan isdul taagno atirishadan Manish Roll filimkaas waxay ku jileysay in ay lagu habeeshay curyaanimo aad u weyn isla markaan Amerikaan ay ka qarinaysay muddo dheer xiriirkiisa xitaa ay u jirtay waxaana sidoo kale filimkaas meeraman kula jiro Amerikaan actorka weyn ee Anil Kapoor runtii actorkaas wuxuu ka mid actorada xitaa Hollywoodka ka soo shaqeeyay wata hayir hees kaleeto waxaa jirto oo filista 1996 oo ayada waxaa jirto oo Amerikaan oo ayada uu baraay daasiga ay fanaanimo ay baranayso oo uu dhahayaa jiro राजा कुरान से प्यार हो गया पहली नजर पहला प्यार हो गया दिल पीछे तुझे प्यार हुए या عادي عجيب ترشيدان Manish Roll دير ودهو عديو اكثر اسكو soo baxayaan door jirinkeeda aktarka u door leedahay aniga laba aktar oo door lahay Kofinda iyo waxa u door lahay maxaa la yiraahdaa iyo Amir Khan labada aktar oo kusoo baxaysan leedahay waa la tahay laba aktar oo aan kala dhicin waa tahay atirishadan Manish Roll waxay ka mid tahay atirishooyinka lagu jecel yahay dalka Hindiya iyo guud ahaanba caalamka gabagabadii barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay falaqeynta atirishadan iyo qaabka ay kansarka ugu badbaaday horta adiga ku watay baashi Umar Ismaaciil 3-4 years camal ay ku qaadatay inay soo daaweyso hadda filimka ugu dambeeyay cusub ee sameysay sajidida ay la keenay adiga dibka arki doona falaqeynta filmaan badan ay sameysay jiro sida dil saaye shaaruqar ay la keentay adana shaaruqa filim kale ay la keentay jiro asagana oo shactiro badan oo yar iyo filim kale ay la keentay aan arkay ay ku betelayso in ay tahay gabar jirkeeda ka ganacsato filmaan badan ayaa jiro oo aan la soo koobi karin watahay Cabdullaahi Manish Roll waa tirishada runtii aad u qiimo badan Amerikaan ka waran filmadiisa waliitrikaas baldeese Zahraban heesiisa aniga ahaan heesta ugu jeclaan taqaanaa
ayuha meri zandagi natum bahari banke ya filinka la yidhaahdo waa raja durane filinka waa raja hindustani waaye ayuha meri zandagi natum bahari banke प्यार 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 ये filmka krishna kabura kula jirto krishna kabura ku jirto isla heesta kale taasna ku jirto oo waxa leeyahay xataa shactareer wuxuu leeyahay waxa leeyahay you welcome you come come welcome allah you come come you leeyahay kulay waa alfagi waa ninku fasira cadifta alfagi inuu jecel ama faad oo cod yar inuu u fasira jecel filmkaas iyo heesta kale ku jirta waxa leedahay baldesi jaranahi rही मुझे छोड़ के मुझे छोड़ oo micnaheedu ay tahay gabar yahay ha bixin la gabadha uur ayaa leedahay musax ya baldesi jaraanahi gabar yahay adiga ayaa lagu hadlayaa ay ha bixin la gabadha uur ayaa leedahay xaruunka micnaha ee dareemsa baldesi yara jadira kahi bulina jara baldesi jara ifli kale waxaa jira sana oo raja kuraalina hadaba aan qaadayne iyo ifli kale waxaa jira abir qaar asagana oo hees kale uu ka baxsada ayaa jirto kaboltitu kame bolo suna adika kandala kya karu adima kandala jeeri marka bedel xud qaraya malaayigan adigii le waa isgaargaar kareke cajiib waa tahay saaxiibayaal qaybi ugu dambeeyay barnaamijkeena isla soo gaarnay sidaan horeba idinkugu sheegnay heesaha hindida heesta ugu jeceshahay aniga Soomaali wala horta waa badan yihiin aniga heesaha hindiga aan taageero oo aan isdho qeyr ay leeyihiin waxaa kamid ah filinkan dadkan inaba caadi maaha oo balwaan iyo Mr. Bon oo balwaan faqiirka inta hore yahay kadib soo taajiray lacag yeelanaya heesta ku jirtaan ka helaa maxaa la yiraahdaa dilkay tahay dil saadii heesta waxaa jirta oo ku jirta oo Mr. Bon uu qaadaay oo dhahay meeri ma ho kebe istara muje iyo filikala isla filikii hiskala soo ku jirta oo maxaa la yiraahdaa askare saduliya be anjani rahobe oo atrishas bigcidaan aqoon ila raajic lahay tuwika labahan waa hiskala filinkaas balwan qaybta dambe lacag u yeelanayaayo waa soo kala kicinayo lugta lahay ka qaadbaha maro filmaan badan jiraan iyo hees iyo waxa kala taageera ee maxaa leedahay dilka habto tuske biyaar he jiya bekarar he acha lele era intizar he ya iyo hees kala taajirta ayadana oo abir qaar iyo ajiib wala ta iyo filin kala taas waxa jiro oo isla filinkaas waxa leedahay ishq fishki wajira oo dhees mataqaara kya karu waxay mataqaanaa atrishada juu jalaya qaadayso oo isla filinka ku jiro iyo markii laga soo tago qaybtan oo jaceelka qayb kale waxaa jirta isdagaala ayaga isbaranayaan oo labadooda xataa aji xataa isla filinka hees kale ay ku leeyahay oo kaajal ku jac waa filinkuba kaajal ku guursanaba ku dhamaan oo faraatiga saxda sabab u noqdo waa kooda ras jeclaayo korba iska daadaawo jireen laakiin ultimo faraanta ay u gelinayaa hees kale waxa ku jirta juraayi beeri kidne asalam tuhe ku jirta ayadana waa tahay guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii aan ugu hadlaynay atirishadaasi Manisha Kroll halka ay fanka kasoo bilowday iyo sida ay kansarkaba ugu badbaaday barnaamijka waxay kala qayb galayay saaxiibkay Cabdullaahi Cudi inteenu mar kale kulmayna waxaan idin leenahay sidaas iyo dabadiiyo laakiin filmka hadda Manisha Kroll waa ka hadalay filmaan badan ayaa biiska loo saaray laakiin waqtiga intuu ay loo saabaxayo ayaan isleenahay uga faa'iideysta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala koqas bay hada subscribe kii like tii share waa ninkan la hadla waa baashi aqoon yare